kulankan oo ahaa mid uu soo qaban qaabiyay Axmed Al-Hindawi ergeyga gaarka ah ee xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dhalinyarada ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasiirada dhalinyarada ee maamulada Puntland, Jubaland iyo Koonfur Galbeed. waxaa sidoo kale kulankan goobjoog ka ahaa xubno matalaya hay'adaha qaramada midoobay iyo ururada dhalinyarada rayidka waxaana la iskula soo qaaday sidii la isoo meel dhigi lahaa ajandayaal lagu horumarinayo dhalinyarada waxaana fikradahooda la dhageystay dhammaanba wasiiradii ka soo qayb galay kulankan iyadoo ugu dambeyntiina uu khudbad dheer ka jeediyay kulankaasi ergeyga gaarka ah ee xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dhalinyarada. markii uu soo idlaaday kulankan ayaa waxaa warbaahinta ugu warbixiyay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiska ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux waxaana uu sheegay in Soomaaliya ay shirkan la tagtay siyaasad cad oo ku wajahan sidii loogu jihayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed dhanka horumarka. shirkana muhiimadiisa ugu badan waxay ahayd sidii loo gacan siin lahaa dhalinyarada ku nool Soomaaliya gaar ahaan loo sameyn lahaa siyaasadda dhalinyarada oo runtii in dhalinyarada la gacan siiyay waxay gashay culays badan saas darteed ayaa waxa wasaaradda hore u go'aamisay in la sameeyo siyaasad ay la jaan qaadi karaan dadweynaha kale ee beesha caalamkuba oo lagu taabagelinayo arrimaha dhalinyarada. cabashada dhalinyaradu aad u badatay awgeed waxaa laga maarmaan noqday in siyaasadaas la sameeyo. duruufaha dhalinyarada haysto aad u badan waxaynu ognahay dhalinyarada inay duruufo badan haystaan kuwaasoo in badan la isku dayay in wax laga qabto ilaa burburkii ilaa hadda laakiin ilaa hadda la marayo marxalad aan lagu guuleysanin in la cirib tiro duruufaha xunxun ee la soo gudboonaa dhalinyarada haday noqon lahaayeen kuwa xagjirnimada iyo kuwa tahriibka iyo kuwa kaleete ee la burcadbadeednimada iyo waxyaalaha la midka ee dhalinyarada saameeyay. marka shirkan waxaa looga goleeyahay ugu muhiimsan waxay ahayd in lagu dhiirigeliyo siyaasadda dhalinyarada beesha caalamka iyo hay'adaha u qaabishan gargaarka dhalinyaraduna arrintaas inay qayb ka noqdaan oo ay gacan siiyaan muhiimadda ugu badan ee shirka loo qabtay intaas ayay. kulankan ayaa daba socday kulamo dhowr ah oo lagaga arrinsanayay horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo hore ay u yeesheen inta badan dhinacyada ka soo qayb galay kulankan maanta kuwaasi oo lagu qabtay gudaha dalka Soomaaliya waxaana dhammaanba dhinacyadii kala duwanaa ee ka soo qayb galay kulankan arrintan ay ugu muuqatay mid xasaasi ah maadaama daraasadii ugu dambeysay ee la sameeyay lagu tilmaamay bulshada Soomaaliyeed 75% dhalinyaro taasi oo ka dhigan haddii la badbaadiyo mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed in la badbaadiyay guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Cabdiraxmaan Umar Cabdi Cabdiraxmaan Soomaali warbaahinta qaranka Nairobi.